السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa daawa television hambalyo ayaa idin leeyahay daawadayaal. waxaa barnaamijkeeda la socodsinaya anigoo ah Shacbaan Cabdullaahi Cali. waxaa maanta isugu soo baxay munaasabada Ciidul Adha dadweynaha ku nool magaalada Mooyaale. waxaa warkaas inoo haya wariyeena Abbas Dheere. munaasabad Ciidul Fidriga oo aad u ballaaran ay ka soo qayb galeen dadweynaha ku dhaqan gobolka Daawa. waxa ay munaasabadaasi ka dhacday stadiumka magaalada Mooyaale. waxaa ka soo qayb galay madaxda gobolka, culimaa u diin, odayaasha, haweenka iyo dhalinyarada iyo caruurta. waxaa halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay madaxda gobolka Daawa. hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa: bismillah, ciid wanaagsan, hambalyo ayaan idin oranayaa shacabweynaha ku nool gobolka Daawa ee degmada Mooyaale ee munaasabadan qaaliga ah ee Ciidul Fidriga oo maanta aan salaadii Ciidul Fidriga isku imaanay. shacabweynaha ku dhaqan degmada Mooyaale, culimaa u diinka, haweenka, odayaasha, dhalinyarada iyo caruurta, waxaan idin leeyahay ciid mubaarak baan idin leeyahay markii ugu horeysa. marka xigta, ilaah baa mahad iska leh. maanta waa maalin qaali ah oo aan 29 maalmood aan soo soonnay, oo maantana ay tahay maalin ciida. ilaahay soonkeena naga aqbalo. iyadoo noocaasa maanta shacabka degmada Mooyaale ee halkan iskugu yimaaday, anigoo ka faa'iideysanaya fursadan, waxaan idin leeyahay nabadgelyada iyo horumarka deegaankeena ka socda ee ama gobolkan Daawa waa inaan nabadgelyada adkaysanaa. midda xigta, dhammaan shacabweynaha ku dhaqan gobolka Daawa ee degmada Mooyaale waxaan idin oranayaa inaan lis caafiyo cid walba, maadaama caafisku yahay waxyaabaha qaaliga ee muslimiinta ay leeyihiin oo dhaqankoodu yahay in lis caafiyaan soo jeedinaya. isla markaana waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo sanadkan sanadkiisa annagoo nabad qabna ilaahay halkan inoo kulmiyo. maadaama waqtiga salaada la soo gaaray, waxaan halkan aan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha gobolka Daawa Cabdimaalik Cabdullaahi Faarax inuu xoogo khudbad halkan inooga jeedayaan soo dhaweynayaa. aad baad u mahadsantihiin. الله أكبر الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا ليال وحامد له الله فرصة خالق أمانتنا لكل مية. anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida, waxaan marka hore idin oranayaa hambalyo ciid wanaagsan, ciid mubaarak. hambalyada ciida kadib waxaan doonayaa laba qodob oo yaryar inaan idin kala hadlo. midda koowaad, waxaynu maanta halkan ku fadhinaa ee aan ku ciidaynaa waa nabadgelyo. haddaynan nabad jirin nolol ma jirto. sidaa darteed waxaa loo baahan yahay nabadgelyada ahmiyadda koowaad inaynu siino, nabadgelyada aynu ku dadaalno. nin waliba gurigiisa inuu ka bilaabo nabadgelyada ayaa laga maarmaana. nabadgelyadu waa waxa ugu qaalisan weeyaan. bilooyin ka hor waad garanaysaan gobolkeenna waxa ka taagan, maantana sidaan nahay waad arkaysaan. rabbigii amniga ina siiyey, colaadii inaga dejiyey ayaa mahad leh. awoodeenna kumaynu keenin, ilaahay baa inaga joojiyey, ilaahay baa amni ina siiyey. rabbigaas inagoo ku xamdinayno waxaa loo baahan yahay
in aynu adkayno oo aynu laba gacmood iskugu tagno nabadgelyada aynu gacan bira ku qabanno aynu adkaysano loo baahan yahay qodobka labaad waxaa loo baahan yahay walaalayaal nadaafadda iyo bilicda magaalada in aynu ka wada shaqayno magaaladeenna waxaad moodaa laamiga in laga dhigtay qashin qub bilicda magaalada nadaafaduna diinteenna waxay noo sheegaysaa haddaanan u qaldaneen inay tahay iimaanka barkiisa weeye nadaafadda marka waxaa loo baahan yahay walaalayaal nadaafadda in aynu ka shaqayno ayaa loo baahan yahay nin waliba gurigiisa ka bilaabo waddada aad marayso suuqyada goobaha la isku imaanayo dhammaantood waxaa loo baahan yahay rag iyo dumar in aynu nadaafadda ka shaqayno ayaa loo baahan yahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال ملول بعد نجد داون إنسان هالكن وداود تي في دوادا هالكن وماشي مناسبة عيد الفطر أي كد عدي أو حوي مدح ذي اللي هو رئيسي ما شاء الله هذا نوحان دحقاد دونا ميكروفونك قار كميدا دوينها شعب كاكونول مقالة موي عليه هذا وحن كسو دويننا ميكروفونك شيخ دادو وعنا كان سلام يا مسلمين تدمال من كستو جوجان gaar ahaan dawlad deegaanka Soomaalida muslimiinta ku nool iyo madaxdooda uu horeeyo madaxweyne Mustafa Maxamuud Umar Allah mahad leh anagoo soo marnay dagaal aad u qareer oo maanta laakiin ku ciidnay nabad iyo barwaaqo ayaan eebba mahad u celinaya tadan kalena waxaan ka salaamayaa muslimiinta dhammaan Soomaalida meel kasta joogta assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markuu ugu horeeyay waxaan salaamayaa madaxweynaha Mustafa Maxamed Umar ayaan salaamayaa tan kale waxaan salaamayaa ummadda islaamka oo imaan si farax ay ku ciideen oo ciidan hadda ka dugan tahay ciid hore ay ka dugan tahay awlar qof oo maaragtay kuwaanjada oo ku soo baxay jirin ma jirin cabsi daraadeed laakiin hadda alxamdulillah thumma alxamdulillah ilaahay baan ku mahadinaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا مسلمين تدمان ميكروفونك لا دحمرينا شعب وينها كدقن دغمدا موياله وحن سلام يا مدحوينه مصطفى عمر ايان سلام يا ودنكيني وحن سو مرني dib aad u fara badan ayaan soo marnay alxamdulillah aad aan ku ciidnay kawaanjadii mooyaal aan ku ciidnay oo si nabad aan ku ciidnay ayaan u mahad celinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal sidaad naga daawanaysaan sidaad naga daawateen waxaad joognaa halka kawaanjihii salaada lagu tugtay salaada ciid al-fadriga oo muslimiinta oo dhan ay isugu yimaadeen haddana waxaan maraynaa gabagabadii warka ayaan maraynaa halkaad naga daawanaysaan waa Daawo TV mar walba iyo meel kasta aad joogtaan waxaad naga daawataan Daawo TV xaruntiisa magaalada Mooyaale ayaan hadda warka idin kala socodsiinaynaa intaan idinla kulmayno warkan warkii xiga sidaas iyo nabadgelyo wararka maanta aan idin hayno waa naga inta dib u soo noqon doono iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh